اي عربتي ما انت شرتي، عربتي ما انت شرتي او اصلهين وحوين وحوين زودان كوي اصلهين ee horta war saxaafadeedku waa idin wadaa midka ugu daciifsanaa anigaas dhihi karo ebid aan maqlo aan arko waxaa intaas kaaga sii daran hal muuqaal idin wadaa qosol leh berrito maalnimo talaado ah hadduu ilaah idmo waxaa dooxa qadar kusii socdo wasiirka arrimaha dibadda maraykanka marco rubio ayaa berri kal ilaab lagu soo dhaweyn doonaa dooxadii maanta ay ku shireen carabti laga raba inay ka arisato tallaabo military iyo tallaabo adag laga qaado israa'iil marco rubio waa taageeraha koowaad ee netanyahu ay kal ilaaba u garab taagan yahay boqol marna asaan noo sheegay israa'iil ciddee hadday dishay xitaa boqorka ugu weyn qadar wuu taageerayaa marco rubio waa maantadan markay carabta shiraysay kaaga sii daran nin ceebta ilaf il dhegeysta maanta markay carabta shiraysay ninka berri wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ee berri lagu soo dhaweyn doono dooxa maanta wuxuu joogay tel aviv israa'iil uu joogay waaya warka gebagabadiisa carab waa shirtay wixii shaax la cabo wixii sambuus la cuno wixii kackac la cuno wixii leefleefoo la cuno maanta carab iyo dalal kale meesha joogay sida bakistan iyo turki gebagabadii hadalka fiiri ah qodobaa lasoo saaray aljaziir sida u jeedaan qodobada cambaareynta marka laga soo tago israa'iil waa cambaareynayna xadgudub international xadgudub caalami ah samaysay dal kale inay ku xadgudubto qalad intay ka dhacda afaarahaas oo dhan ka soo tag laba qodob aniga ugu qosol badneed waxa ay soo saareen hal tallaabo military iyo cunaqabateyn iyo diidmo israa'iil inay israa'iil dal tahay waxaas oo dhan kuma soo darin meesha qodobka ugu qosolka badnaaya wuxuu yahay waxaa la yidhi qadar qaab waxaa u dhaqantay ilbaxnimo qaab waxaa u dhaqantay reer magaalnimo qadaraa la dhahaa qodobka ay soo saareen ka mid tahay qadarey reer magaalnimo u dhaqantay oo maxaa waaye maxaa reer magaalnimo ugu dhaqmo waaye naaheedha qadarey markaa israa'iil kusoo weeraraysay waa ka aamustay gacmaha isa saaratay diyaarada ma kicinin meesha dagaal weyn inuu qarxo ayaa iska ilaalisay meesha sida aljaziira uga jeedaan waxayba igu soo dareenbo qodob ah qadar qaab ilbaxnimo ayay ula tacaashay falkan weerar ee israa'iil ee soo qaaday oo qadar weerar celis ah ma qaadin diyaarada ma kicinin war yaa ilaahiy qaban dadka intay nooga imaadeen waraa markay hindiya bakistan kusoo xadgudubtay bakistan isla markii waa iska celisay waraa markii adduunka waddan kale markii ukraine lagu xadgudbay ukraine isla markii waa iska celisay ruushka saxaabada waxay taagan yihiin israa'iil kusoo weerartay adigana waa u fariisato waxaa maqli jiray waagaa yaryareen laba qof asdagaalayso mogtahay laba qof asdagaalayso xariifka marka xariif waxaa jiro oo marmarka qaar la dilano oo laga tambadiyo feer iyo jilib iyo suxur iyo meel la saaro marka dhalinyaradan ilbaxda waxaa samayn jirna waa loo tegaano yarka la dilay loo tegaa waxaa leeyahay saaxiib wallahi niyo waxaa noqotay adaa ka fiican kaas faraha ka qaad hala dagaalan allah saaxiibka isku bobogaano waa nin la dilay sheekadii carabta maanta keentay qadra waxaa leeyahay ilbaxnimaa samaysay qodobka kale ee qosolka badan gebagabadii markay war-saxaafadeed soo saareen haddana shir jaraa'id qabteeno shirka jaraa'id su-aala mid saxafi ah ayaa wuxuu carabtii ninka u hadlaya afhayeenka ahaa su-aal la weydiiyey waxaa la yidhi haye maxaa hadda maxaa leedihin israa'iil oo maxaa tallaabaa qaadaysaan waxbaa qaadaynaa cunaqabateyna soo rogaynaa meesha la rabo inuu dhow wuxuu dhahay waxaa ka codsanaynaa maraykan waxaa ka codsanaynaa inuu israa'iil naga celiyo israa'iil uu la hadlo uu naga canaanto joog israa'iile meel joog inuu maraykan israa'iil ku dhaho haddaa u malaysin aad la kaftamaayo muuqaalka iltaaqo one thing it's actually one sentence we also expect our strategic partners in the United States to use their influence on Israel in order su'aal kale oo la weydiiyaa waxay ahayd ma ku heshiiseen israa'iil in cunaqabataan si guud u wada saartaan idinkoo carabta iyo muslimiinta iswata ah wuxuu ku jawaabay ninka shirka jaraa'id adiga soo daawo wuxuu ku jawaabay dalalka ayagaa shaksi xur u ah inay cunaqabateen saaraan laakiin wax heshiis la gaaray israa'iil maadaama israa'iil hub laga soo gaday hub ay ka soo gataan carabta iyo cuntada qaarkood waxyaabo fara badan oo israa'iil laga soo dhoofiyo carabta la keena khaliijka ay jirto iyadoo xaalku sida uu yahay oo shirka uu socdo carabta meesha ay fadhiso waxaa shir jaraa'id qabtay benjamin netanyahu ninkay dhahaan oo israa'iil hogaamiyaha u ah qosolkan iyo muuqaalkan il dhegeysta wuxuu leeyahay netanyahu
موبايلada gacanta ay ku haystiin moobiladan yar yar gacanta ay ku haystiin iPhone-nada Mareykanka uu soo saaro haddaa gacanta ku haystid oo taagan yahayba waxay la mid tahay iyadoo Israa'iil gacantaada ay kugu dhex jirto yani waa kula soconaa waay telefonka aad wadatid ama kaaga la soconaa asaga afkiisa nooga sheegaya Netanyahu cuntada cuntiin daawada isbitaalka faleebadan lagugu suraayo cirbadan lagugu suraayo daawada ay qaadinayso waxa soo dhan baa daa isticmaashid kulaha asagoo dhahay ildaw. Do you have cell phones? You have cell phones here? You're holding a piece of Israel right there. You know that? I mean, a lot of the cell phones, the medicines, the foods, you eat cherry tomatoes. You know where that was made? Waya wari dhamaantiis Falastiin sidii joogto looga haya wax isbedel ma leh qocdu way socotaa gaajadii macluushi sidii waa Lubnaan sidii joogto looga haya Syria sidii joogto looga haya wax isbedelay sidii shalay xaalku ahaa leeyahay maanta kuwan waana lugooyeen nacla simbuuskooda iyo bijooda iyo xalwadooda 3 saac waqtiga iga beerdareen Al Jazeera war fadhi baato dhaxaas la wax weeyay soo socda